12 bishani ayay ahayd markii warqad ay ku saxiixan yihiin 93 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ay u gudbiyeen guddoonka baarlamaanka dalka Soomaaliya taasi oo ay ku doonayeen inay xilka kaga xayuubiyaan madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika oo TV-ga Universal oo mikrofoonka la dhexmaray ayaa si isku mid ah uga hadlay mooshinkaasi ayagoona ku tilmaamay mid aan munaasab ahayn xilligani sheegayna howlo badan oo wax ka qabad u baahan inay hor yaalaan baarlamaanka dalka Soomaaliya maanta anaga Afrika ka dhibanaadan lahay jaaliyada waddanka South Africa gaar ahaan Cape Town waxaan u aragnaa mooshinka baarlamaanku uu keenay madaxweynaha Soomaaliya xilka laga qaado inay tahay mid sharci darro ah inay tahay jahwareerkii siyaasadeed ee Soomaaliya ka sii gudbasay inuu celiyo arrinta waxa la maqalay mana taageersanin baarlamaanka xalaashaana waxaan leenahay inay arrintaas iyada ah ay ka hortagaan in arrintaas arrin munaasab ahayn shacabka Soomaaliyeed maanta waxay rabtaan inay sugaayeen isbedel dowladda maadaama ay yihiin baarlamaanka Soomaaliyeed 24 saac ay mushkilinayaan oo hadda xilliga la joogo aysan ku habooneen waxaan ka codsanaynaa guddoonka baarlamaanka maadaama uu dalku soo noqday in mooshinkan si sharci darro oo yahay 25 sano ayaa dib ku jirnay qax ku jirnay maanta mana baahnin in aan dib noo celiyo waxaan ka codsanaynaa dhowr ra'iis wasaaraha riday mid labaad mid saddexaad hadda madaxweyne baa la keenaya xilligan waa xilligii hore loo socolahay baarlamaanka sharafta leh waxaan ka codsaynaa inaysan dib u dhac noo horseedin waddanka horumar u bilaabay waxyaabo badan oo fiican oo ognaha socdo anigu waxaan u arkaa inay waxyaalaha qaarkood waxyaalo laga xishoodo tahay koosmaalin walba mid ka yimaadaba hadii la mooshin baa laga keenayaa dib weyn baa imaanaya waxaanu anagu jeclaan lahayn hadaanu nahay jaaliyada Soomaaliyeed ee qurba joogta ah inay nimanka Soomaaliya gudaheeda ku jiraan naga dhaafaan dhibka ay wadaan iyo mooshinada maalin walba ay leeyihiin madaxweynaha mooshin laga keenay iyo ra'iisul wasaare mooshin laga keenay waqti yara ka dhiman taamkii maartay kulli lagu ballansanaay waxaan u arkaa inuu maartay mooshinka inuu wax sharci darro yahay waxaan ka xumahay mooshinta xilliga la soo jeediyay iyadoo dawladdu harsan tahay waqti aad u yar markii haddi iyo horumarkii la sii talaabi lahaay ee ummadda Soomaaliyeed danaheeda laga fikiri lahaay hadda iyo mooshin iyo kacdoon iyo balaayo iyo tii hore iyo mid kaleeto haddeer iyo madaxweyne cusub si kastaba ha ahaatee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa astaan u noqotay ku mashquulsanaanshaha mooshin ka dhan ah madaxda ugu sarreysa dawladda Soomaaliya Xasan Kaafi Maxamed Shire telefishinka caalamiga Universal magaalada Cape Town